الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تضباد يدروستين بشان محرم بإذن الله تبارك وتعالى سنة كعصبة إسلامك دور الأمة أمة المسلمين تا iyo waqtiga iyo siday uga faa'iideeyeen dadkii salafka ahaa waxay dhiseen xadaarad islaamka xadaaro weyn bay u sameeyeen oo waxyaabihii iyo xilligii ugu fiicneed gaadhay ayay sameeyeen waxaa ka faa'iidaystay xadaaradii dadka muslimiinta ah ummadihii kale ka faa'iidaystay fi sharqi walgharbi intuba way ka faa'iidaysteen waxaa qiray xadaaradii dadka islaamka iyo horumarkay sameeyeen ciddii ka fogeyd iyo ciddii u dhoweyd intuba way wada qireen bicadamati tilka alxadaara waxay ahayd xitaa maanta wax badan oo reer galbeedku ay haystaan oo culumtan casriga iyo waxyaabaha ay ku faanayaan adduunka waxay ka dhaxleen ama ay ka xadeen dadkii muslimiinta kutubtoodii intay qaateen oo wax la og yahay oo xaqiiqada oo tiro badan weliba oy ka tuureen magacii ku qornaabay ku qorteen magacyadoodii oy niman siiyeen haddaba rasuulku waa wuxuu yidhi sal alla alay slam nicmataani maqbuunun fiihima kathiiru min annaas alsixatu walfiraaq laba nicmo oo waaweyn oo ilaahay dadka uu maanta siiyey kama faa'iidaysano waana waxyaabaha laga shalaayay ku jiraan waa sixada iyo caafimaadka qofku markuu caafimaadka waayo ayuu dareemi doonaa ayib ta kalena waxa weeye firaaq asixa caafimaadka nin waxaa maalmahan wada joognay ilaahay subxaanahu watacaala indhihiisa uu ka qaatay oo dadka indhaha beelay ah laakiin ninkaa isagoo weyn buu indhaha beelay waana indha qabay waa shaqaysan jiray wuxuu ahaa nin maasha allahu tacaala ummadda ku dhex jira oo shaqo fiican ka haysta oo saasuu ahaa markuu hadlayo ayaa wuxuu yidhaahdaa ilaahay subxaanahu watacaala indhihiina haydiin daayo waxaa kaluu yidhaahdaa indhahaygu intaan qabay waxaa habboonayd inaan wax fiican uga faa'iidaysto arrintaas waa arrin aad u cajo badan shayga waxaad xusuusan ama aad dareemi markaad weydo marka asixa rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay slam caafimaadka iyo firaaqa markuu qofku leeyahy wax qaban karo waa nicamta la isweydiin doono cumar bin alkhataabin radia allahu canhu yaa wuxuu odhan jiray waxaan nacayaa inaan arko qofka subhala isagoo ah inii la akrahu axadakum subhalan ay faarigan laa fi camali dunya walaa fi camali aakhira yacni qofka isagoo faarig ahoo gacan bannaan oon waxba haynin camal adduunyana aan qabanaynin camal aakhirana aan qabanaynin ma jecli buu odhan jira inaan qofka aan sidaas ku arko haddaba takhdiid ayaa loo baahanyaya mustaqbalka inaynu balayn samayno iyo takhdiid wax la qorshaysto waa qorshe in la dejiyo qorshahaasoo sanadku markuu cusub yahay aan la bilowna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala horteennana aynu dhigno waxyaabo aan rabno inaan xaqiijino biidni illaahi tabaaraka wa tacaala haddaba nasaa'ix ayaan runtii soo jeedin rabaa naftayda iyo tiinaba inaynu sanadkan cusub oo insha allahu tacaala inoo cusub oo hadda inoo bishay inaynu insha allahu tacaala aynu bilowno oo caawa 13 ay tahay bishu maalin jumco ah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala nacam